Maanta halkan waxaan ku tusinayaa qaabka iskaga ilaalin kartid dadka email-yaha iyo account-yada ka jabsada. Marka adigoo email-kaada u yeelaya extra layer of security. Marka waa idin tusinayaa la socono. Marka hore waxaad soo furaysaa Google-ka. Marka halkan profile-ka ku dhufanaysaa. Google account-ka ku sii dhufanaysaa. Marka halkan marka hore waxaad tagaysaa halkan personal info. Marka halkan muhiim waaye inaad telephone number halkan geliso. Waa muhiim. Haddaadan telephone number halkan iskugu jirin recovery phone number calaamadan ku dhufo. Marka add recovery phone number dheh. Hadduu kugu jiro waa okay. Halkan ay imaanaysaa. Haddii kale muuqaal aan kasoo suubiyey halkan kore in soo saaraya qaabka form verification looga daro email-ka. Haddii kale calaamadaas ku dhufo add dheh. Marka halkan security ay imaanaysaa. Security marka imaado hoos u soconaysaa halkan two step verification meeshay ku qoran halkan off waa sida arkaysaan on inaad ka dhigto weeyaan. Marka email-kaada qof hata password-kiisa duu aqaana telefoonkiisa ma gelin kara ilaa markuu password geliyo waxaa la dhahayaa code aan ku dirnay telephone number-kaas oo recovery phone number ahay. Marka waxaa la leeyahay code-kaas waa inaad inta gelisaa sida email-kan aad ku gelisay telefoonkaada. Marka qofkaas isagoo haya email-kaada password-kiisa ayuu isticmaali karin ilaa code lagu soo diray telefoonkaada ama recovery phone number lagu soo diray ilaa code-kaas uu helo. Marka halkan aad ku dhufanaysaa. Marka halkaas markaa ku dhufto calaamadan waxay gadaal u noqonina. Calaamadan markaa ku dhufto waxaad sii taabanaysaa calaamada app-ka Chrome-ka sii taabanaysaa. Si toos uu Chrome kuu geynayaa marka. Halkan markaa imaado get started aad ku dhufanaysaa. Halkan wuxuu ku leeyahay marka email-kaada password-kiisa geliyo ku leeyahay. Marka halkan aad password gelinaysaa. Password-kan gelinay marka next aan leenahay. Marka halkan telefoonkii had ku isticmaalaysa email-kaas laba siyaabood ayaa lagu verify gareyn karaa. Email-kaada haddaa meel kale gelin rabtid waxaa lagu dhahayaa telefoonkii email-kaas uu ku jiro hadda telefoonkaada uu ku jiro oo two step verification-ka u furaysa ayaa lagu soo diraya message oo kor soo fulaysi. Marka ma adiga lagu leeyahay qofka sign in gareynaya oo device-kaas ka sign in gareynaya email-kaada yes aad ku dhufanaysaa. Haddii kaloo waxaad dooranaysaa number verification. Marka recovery phone number kii kugu jira code lagu soo diraya code-kaas meeshaas gelinaysaa. Marka halkan hadda continue aan ku dhufanaynaa. Telephone number-ka halkan lagu soo saaraya. Marka halkan calaamadan text waa inaad doorataa phone call haddaa hayin send aad leedahay. Marka hadda code aa laysoo dirayaa code-kaas halkan gelinayaa. Sida arkaysan 267203 267203 267203 next aan ku dhufanayaa. Marka waa dhamaysi turn on aa leedahay marka waa furaysaa. Sidaas marka qof kale ma ku access gareyn kara account-daada ilaa adiga inta turn off dhaadid. Wuxuu u baahnaanaa code lagu soo diray telephone number-kaada mase message number-kaada kusoo fuusho phone-kaada telefoonka ku isticmaalaysa email-kaas kusoo fuusho oo yes aad tiraa aniga waaye. Waxaa lagu leeyahay qofaa device noocaas ka sign in gareynaya email-kaada marka ma adiga lagu leeyahay yes aad ku dhufanaysaa. Haddii kale code lagu soo diraya telephone number-kaada. Marka waa fahanteen aan jeclahay. Wixii su'aal oo qabtiin insha Allah qaybta comment-ka nagu soo wadaaga. Khayr aan rajeynaya subscribe-da naga hilmaamina.